badagay ayaa marka hore leeyahay marka xigana waxa leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim madaxdeena qaaliga ah ee nafteena halkaas lagu soo bixisay ee naqaba fadhida waxaan leenahay war ma midaqay dadkii tira ma midaqay intii kale ku soo tashanaysa meesha ka baxdo waxaan leenahay xisbiga kulmiye inuu haday faagan ويسبدلها ويخرمي حبينا ويدعي إن عن حكم بعض اللي بعضه وأنتي كوالي كابيكا إنه إن شاء الله في تنبسط يتوب كذا كل يوم يسبقي كريدنا يكمل أدي العائلة وكل أحسن أسلام صوب عليه دور ما إحنا ذاك صوب على نقطة
meel la kala fadhiista lalaayeen waxaanu isnidhi muxuu ahaa dilana kala soo qayb gala mar haddaad iyadiina soo bilowdeen horta waxaynu doonaynaa waxa weeye waa isbeddelna iskama rabnoona waxaynu rabnaa in uu inoo keeno caafimaad biyo barwaaqo waxbarasho yani dhaqaale sida lagu helayaana waxa weeye intaas sida lagu helayaana waxa weeye in dil ay hesho ganacsi iyo dhaqaale ka badan kii hore waxaa intaa lagu samaynayaa waa dawladda oo ka qayb qaadata maalgashiga waddan awal boqolkiiba hal baa layna siin jiraan u malaynaya waxaanu balan qaadayna haddaanu wadanaynahay boqolkiiba 500 inaan ku darro wixii aan layna siin jirin awle halkani ma jirin iskamalihima ma samaynana lacagta laakiin waxaan cadaalad baan waxu qaybinaynaa cadaaladda ay naga dhagaystayna 500 xillo oo kale wixii horey jiri jirin waayo waxba bay jirin dila waan ognahay haddii ay iskuul tahay hadday jir tahay hadday guri tahay hadday tahay muxuu ahaa ganacsi inta midna ma jirin waxaanu insha allah iska furi doonaa jidadka ganacsiga xaggan iyo wajaale xaggan iyo hoosta muxuu ahaa luqaya jidkan jabuuti waxbaan ka qabanaynaa kan agteenna jooga muxuu ahaa awbarre laftiisa iyo ganacsiga 100 milyan ee agteenna jooga ee aan ka qatannahay maanta waxaanu isku dayaynaa inaan wax ka qabanno haddii ilaahay dadka hogaaminaya ma aha dad iska yimaduuna waa dad mutacalimiina waa dad yaqaana sida loo sameeyo dhaqaalaha iyo horumarka waxaanu insha allah ku rajo weynahay in isbeddel dhaqaale iyo horumareed uu ku dhici doono deegaankan dila iyo awdal labadaba iminka awdal waddanka waxaa la siiya intaasoo bilyan baa la siiya oo dhaqaalaha waxay ka heshaa waxaan 3 dhannayn boqolkiiba 3daasina meel yaroo gaara bay tagtaa oo shakhsiyaada oo reer yar leeyahay ama shakhsiyaad leeyihiin laakiin yeelan maysa reerkeeda yeelan maaye waxaanu isku dayaynaa inaanu 3 jibaar ama 10 jibaar kordhina haddii la hayraa aad ugu dhabar adagteen ee ugu soo baxdeen xisbigiina nafya maalba u horeystaan ee u heegan u tiinaameeya maalinba waxaan idinka mahad celinaynaa sida aad maanta u tuurteen heeryadii ina saarnayd ee xisbiga kulmiye waxaad muujiseen degmada dila waxaan hore loo arag oo aan lagu rumaynin babuusan maanta waxaan dareemaynaa rabitaanka shacbigu sidaad ugu baahantihiin isbeddelka aynugu hortaagnaayeen muddo badan raga aan dan u wadin magaaladan dila ama degmadan dila runtii waxaa maanta inoo caddaatay in aynu u diyaargarownay inaynu soo saarno xisbigii rajada ee xisbiga waddani ee inoo samayn lahaa baahiyihii aynu qabnay dhinacyo walba waxbarashada caafimaadka biyaha waxa inaga xiga inta aynu farta ku ridana ay naga xigta haddii alla idhaahdo waxaa muuqan doontaa waqti kooban dabadeed waxaa muuqan doontaa wixii aad geysateen abaankiiniyo la soo celiyaa muuqan doontaa isbeddel muuqday diyaar yihiin oo ay ka daaleen taageeradii iyo muxuu kulmiye ay daba socdeen anigu waxaan idhahdaa kulmiye waxaa u kulmay musuqmaasuq qaraawakiil eex iyo cadaaladdarra ku kulantay tii baa diidan tihiimada waxa dowladdaariya badashaan badallaa waa ka aqbalay allaha ka aqbalo waa la bedeli doonaa runtii aad iyo aad baa u mahadsan tihiin رجال وين بعد المقطع تذكر الرجال كذا كبيان ويكون بدران ما تصدر شلا كلهم ليش يدوريان دلنا الرجال حيدون الإحرام وحدون عدالة وحدون عمر وحدون سنان وحدون عباس يجون الجامع عمر حاجة معان يدا كنت ذكر وحتى بربري ما حضرين كانوا قبل دولة waxay arkeen markay arkeen musuqmaasuqa taagan cadaaladda taagan kalsoonida ka luntay marka xisbigan wuxuu soo celinayaa kalsoonida dadka wuxuu soo celinayaa rajada dadka marka waxaan doonaynaa in xisbiga u footayno waxaan ballan qaadaynaa inaan u footayno oo lagu rubno oo isbedelkaas u dhawoobo حتى meelaha la wado waa in xalayay laakiin waa isbaydeen
in calanka soo qaato lacag lagu soo shuqaamiyaa socon maayo iladu inuu kuugu dhalayaa mudadaasu kuugu dhiibyada waxaa iskuul iibiyey ee meel walba gaabiyey ee ciid iibiyey ee wadanka kala xidhxidhay ee qabaayilka ka shaqaynaya ma badalaysaan codkeennu maaha wadani soo isbadalaan ma tihiin waxaan la wadaagnaa ka sool jooga ka ceerigaaba jooga ka burca jooga ka hargaysa jooga ka awdal jooga maanta dhulkiis xidhay ee bijaajii socon weyday ee dhammaantiis ku soo baxay kuwaasaynu wax la qabnaa kuwaasay inoo hiila dhammaantii wejiga laga soo daro waya dili awdal waxaa lagu tartamayaa shacabkuna garsoorya guushana waxay iska ninka u tartaayo guusha waa ninkaa u darataayo raabtilaadna waxaan leeyahay kulmiya waa gobolkaa dhacay wuxuu ku caanbaxay gadashada dhulka iyo baqadoolashada alaabta lacagta waday la ordayaan ee shacabkaan iibsanaa la yidhi shacabka maa la iibsan karaa damiirka qofka maa la iibsan karaa cadaaladda maa la iibsan karaa haddaan cayin silmayga dhigaya waxaan uusasoousatay qoola telefishankeeda soo marisa talaado xabaalaha muusow raggii adlaysay baa ku jira oo saaka shacabku tumayay maran qayuurada tigarkaan goosto waxaan yaalaa bulbeeweyna iminkana wuxuu dii sheegaya inuu beenta dii sheegayay waradinta ilaahay baa jiray dadku labada biyaha ku wada cabbaan isbeddelka aan doonaynaa waa dadkiinna waa nabadgelyo damiirkiinna in la iibsado iska ilaaliya lacagta haddaad soo qayishaan dhallinyaroni waad soo qayina waa lacagtiinni markaad qolka gashaan damiirkaaga raalli geli ugu rid wadan isbeddelkaaga lacagta lacag lagu yahay lacag uusabbeereerkoogu soo iibiyey maaha waa buurtiisii moodigu qaybteedii ku qayib annagaa ku oqon qolka markaad gasana waa inoo ballo waxaad maxadaqayabeen waa dabayl waa daruuriya roob halkii ay ku daroorto waa ku soo bixisa waa dabayl daruuriya roob halkii ay ku daroorto waa ku soo bixisa dadka geerta waqooyiyow tan qudaynu lahay eena waa isku talo wadani waa dawadeenne u dareero walaal bale waa dabayl waa daruuriya roob halkii ay ku daroorto waa ku soo bixisa dadka geerta waqooyiyow tan qudaynu lahay inagoo isku talo wadani waa dawadeenne u dareero walaal oo xisbiga wadanu ku dhaco masku raacsannahay waxaa aan iman doona haddii lahaynaa mustaqbalka waxaa iman doona magaalada dila oo isbeddelkaas iyadana bedelo magaalada dila oo waxaa iman doonta isbeddelkaasi degdegu uga muuqdo waxaa iman doonta magaalada dila oo isbeddelkaasi caafimaadka bedelo oo waxbarashada bedelo oo biyaha bedelo haddii lahay nagu sugo laakiin shardigu wuxuu ku xidhan yahay gacanteennu ku xidhan yahay horteennu ku xidhan yahay inaan gacanteenna ku bedello qabaalakiilka eexda iyo dawladda ku caanbaxday in suqmaasuqa dawladda ku caanbaxday in ay dhinac wax u urursato inaan gacanteenna kuridama isku raacsannahay tuka fiican oo cadaalada oo siman oo ummadda u siman in aan keenno oo gacanteenna ku jirto isku raacsannahay maalinta haddii ilaha yidhaahdo waxay noo ballanaa in aan dhammaanteen yar iyo weyn gacanteenna isticmaalno gobkii iyo garbiga oo ilaahay siiyey oo dhulka kale aanu lahay waa waxyaabaha ilaahay dadka deeqda uu siiyo alxamdulilaah waxa weeyaan waxaan idiin sheegayaa in yaroo xoogla rana annagu haddaynu odayaashii nahay aad iyo aad baan taariikhda waa naga soconnaa waxaan idiin sheegayaa 26 sannadood bay awdal ayay dhisnayd somalilan 26ka intii maalmihii ninkii ina cigaal maxamed ibrahim allah u naxariistay uu joogay ayaa wax cadaalad u eg ayaan indhaha ku dhifana in alla inta ka dambaysa wax cadaalad u eg iyo wax u dhow midda maynu arag
كويالا وهل كان يسوقين ومدحوينا سوماليلين مانتا جوغا أحمد محمود سيارو إيوه شو مسير ولا السعودان هلكا أيام هلكا قوة هذا الله وعن خويدي أضاي عالمكي وعسوميني عداني مذوق عاشقه عداني مذوق عاشقه أضاي عالمكي وعسوميني